madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar ayaa maanta safarkiisa ku soo galay magaala ganacsiyeedka Wajaale dhinaca Soomaaliland isagoo ay wehelinayaan wasiirro ka tirsan federaalka dawladda Itoobiya wafdigeena ayaa iyagoo wata 5 gaari oo ciidanka new booliska ah waxa ay ka adeegteen suuqyada degmada Wajaale iyagoo magaalada joogay muddo ka yar saacad wafdigani kama ay muuqan ciidamada ilaalada degmada Wajaale iyo maamulka gobolka Gabiley qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Wajaale ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay imaanshaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cagjar ee aanay ka sii warhaynin maamulka gobolka iyo ka degmada Wajaale waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya magaalada Wajaale maanta soo galay madaxweynaha dawladda deegaanka Mustafa Cagjar oo wata ciidankiisii wuxuuna ka soo tallaabay xadhigga u dhexeeya labada dawladood waxaana si aad looga qaaday xadhigga maxay ahayd madaxweynaha uu ka adeeganayay magaalada gudaheeda isagoo meheradaha qaar ka mida kale oo ka iibsanayay laakiin la yaab kale wax noqotay waxa weeye madaxweynaha oo watay staafkiisii balse maamulkii degmo gobol iyo heer qaranba cid la socotay aanay jirin waa arrin ka fajcisay shacbiga degmada Wajaale waxaan u malaynayaa arrintaas inay tahay arrin mas'uuliyad darro ah oo ay la yimaadeen maamulka degmada Wajaale ilaa heer gobol arrin ay la yimaadeen baa weeyaan arrimaha noocaas oo kale waxa weeyaan waxay wax u dhimayaan meeqaamka dalka ayay wax u dhimayaan inuu madaxweynaha dalka intuu soo galo isagoo ciidankiisii wata cid la socota aanay jirin waa arrin nusqaan inagu ah waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha arrintaa inuu ka jawaab degdeg ah ka bixiyo adigoo ma maqashay inay arrintaas isku khilaafeen taliyaha saldhigga magaalada Wajaale iyo gudoomiyaha degmadu horta goor meel ay isku khilaafeen inkastoo aan joogin laakiin dad badan oo way is khilaafeen oo ka hadlaya waan maqlay jirta laakiin arrintaas soo gelitaankaasi uu soo galay madaxweynaha dawladda deegaanka laba dawladood oo walaalaha baynu nahay xiriir badan inaga dhaxeeyo ku ganacsi ku siyaasadeed nooc walba inaga dhaxeeya ayaynu nahay laakiin waxa weeyaan milkiheedii iyo miisaankeedii iyo nidaamkii dawladnimada meesha kan muuqanin waarta yaaba biila noqotay anigoo meel tiir dhaqtay oo baaban madaxweynaha dhanaan la kulmo waa ban yaaba horta yaaba igu noqotay arrinta filiskee hoos waxa looga laga wanaagsan aynu jaarnahay xiriir badan inaga dhaxeeyo xiriir ganacsi baa inaga dhaxeeya Wajaale waa magaalo ganacsiyeed intaas oo qowmiyadood wax naga iibsada ilaha kaliya aynu hayna way dadka Itoobiya nooga imanaya runtii madaxweynaha aad baan u soo dhaweynaynaa inuu magaalada soo maro inuu soo booqdo inta baad baan u soo dhaweynaynaa wallahi kama sheekan karo wax ka iibsaday laakiin in macnaha protokolka in yaraaba protokolka ba qaldanaa baan aaminsanahay laakiin waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha arrintaasi kolley waa arrin dawladda wax u dhimaysa waxaana lagala xisaabtami doonaa baan malaynayaa maamulka magaalada iyo ciidamadii u xil saarnaa ilaalinta dalka waxa uu qofka muwaadinkii qaadan kara maya wax ciidan sharci darro iskaga soo tallaaba oon halkaa lagu joojin waxay tilmaamaysaa dawlad la'aan taasina ma aha mid uu qaadan karo qofka muwaadinka Mukhtaar Nuux Ibraahim telefishinka caalamiga ee Ariel gobolka Gabiley